labada wadaal ka soo dhawaada Somali Health Lifestyle 1 oo Dr. Abdullah ay soo jeedinaya Maxamed Cali Clay oo brigii hore loo yaqaanay Cassius Marvelous Clay ayaa magaciisa iska bedelay markii uu muslimay ee ku biiray kooxda Mareykanka midow ah. Maxamed Cali waxa uu ku dhashay sanadii 1942 magaalada Louisville, Kentucky oo Mareykanka ku taala. Maxamed Cali waxa loo aqoonsaday inuu yahay feeryahanka miisaanka culus ee ugu caansanaa qarnigii 20aad ee soo dhaafay. biladaha dahabiga ciyaaraha feerka culus ee uu ku guuleystay inuu qaado sanadii 1964 baa ahayd ugu horeysay. feeryahanada ugu awoodda badnaa ee uu ka guuleystay waxa kamid ahaa Joe Frazier iyo George Foreman. Maxamed Cali yaraantiisii ayuu ku hamin jiray inuu dagaalka foolka ah iyo feerka culus ba ku biiro. markuu 12 jir ah waxa laga xaday baaskiiladiisii waxaanu dalbaday police officer la oran jiray Martin oo dadka bari jiray habka loo barto feerka culus in uu tababaro si uu uga aarsado tuugii xaday baaskiiladiisa. 1954 waxay ahayd sanadii ugu horeysay uu ka qayb galo championshipka feerka culus waxaanu ku guuleystay ninkii ka soo horjeeday maalintaasi. waxa uu la hoyday biladii dahabiga ahayd ee ugu horeysay noloshiisa. 2 sano kadib waxa uu ku guuleystay bilad dahabi ah oo feerka fudud ah. Maxamed Cali 1960 waxa uu Roma ka qayb galay ciyaaro championshipka ah oo feerka culus ah oo ku metelay waxaanu dhulka ugu tuuray ninkii Zbigniew Petruscovi oo ahaa nin Poland ah oo maalintaasi uu ahaa ninkii ka soo horjeeday. guulahaas soo tarayay kadib waxa Maxamed Cali loo aqoonsaday inuu yahay nin reer Mareykan ah oo xidigiisu soo baxayo. Maxamed Cali 1964 ayuu ku biiray kooxda Muslim oo Mareykanka ka jira waxaanu iska bedelay magaciisa Cassius Clay 3 sano kadib. waa 1963 markii Mareykanku abaabulayay dagaalkii Vietnam. Maxamed Cali waxa uu ahaa dadkii aad ka uga soo horjeeday inuu ka qayb galo dagaalkaasi. isagu shakhsiyan waa uu diiday inuu ciidanka raaco waxaanu sabab ugu dhigay inuu muslim yahay oo diiday dad dulmi lagu soo leenayo inuu qayb ka noqdo. dhacdadaasi awgeed Maxamed Cali waxa uu mutaystay 5 sano oo xarig ah inkastoo aanu xarigaasi lagu fulin oo rafaan ka qaatay laakiin 3 sano ayaa noloshiisa ka lumay oo aanu ka qayb gelin ciyaaraha feerka. Maxamed Cali waxa uu golaha feerka ku soo noqday 1970 isla markiiba waxa uu ka guuleystay ninkii la oran jiray Jerry Query. Maxamed Cali waxa gurigiisa ku soo hoyday 56 guulood iyo 5 khasaare iyo 37 feer oo culus oo uu ragii ka soo horjeeday dhafoorka kaga jiiday oo uu dhulka ugu tuuray. feerkaas oo loo yaqaan knockouts. Maxamed Cali waxa uu ka fadhiistay ciyaaraha feerka culus 1981 isagoo ah 39 jir. Maxamed Cali waxa laga helay 1984 cudurka maskaxda iyo neerfaha idleeya ee loo yaqaan Parkinson disease. Soomaaliduna u garan ogtahay gariiratada ama gariirka. waxa uu Maxamed Cali dhalay caruur badan oo caruurtiisuna caruur kala sii dhaleen oo uu ahaa caruurtaasi aad ayay isaga jeclaayeen isaguna aad buu u jeclaa. Maxamed Cali waxa la sheegaa inuu magaciisa Maxamed Cali meel kasta kaga dhawaaqi jiray oo uu dagaal dheer u galay sidoo u meel marin lahaa magaciisa cusub iyo shakhsiyadiisa nin adayga ku dhalatay ee aan libiqsanayn. Maxamed Cali waxa uu ahaa shakhsi dun fiican leh oo gobonimada jecel sidoo kale dadka dulmadna aad u taageera. wariyaasha ayaa la arki jiray inta badan isagoo la shactiraysanaya oo su'aalo aad u adag iyaga qudhooda dib u weydiinaya. waxa jiray wariyaal oo aad ula dagaalamay oo uu dareemay inay ku celinayaan magaciisii hore ee Cassius Clay oo uu runtii aad u necbaa in loogu yeero. Maxamed Cali waxa uu caan ku ahaa inuu ku celcelin jiray waxaan ahay balanbaalis dul fiican ama shinni qaniyo kulul intaan golaha feerka taaganahay. waxa jirta mar wareysi laga qaaday inuu aad u dhaliilay dumarka isqaawiya oo uu carabkana aad u dhajiyay in aanu jeclayn in gabadhiisu isqaawiso oo raggu ilqoodha ka fiiriyo. waxa uu ku metelay inaanay xayawaanku is asturi karin laakiin bini aadamku ay tahay inuu is asturo. Maxamed Cali waxa uu dhintay isagoo dunida oo dhan ka haybidaysanayso oo gaaliya muslim ay u istaagayaan. 2016 ayuu ku dhintay gobolka Arizona ee koonfurta Mareykanka waxaana lagu aasay magaalada uu ku dhashay Louisville, Kentucky. Allahu raxmado Maxamed Cali oo ahaa runtii nin aad u culus oo ka baxay golaha feerka adduunka. waxaad igala socotaan waa Somali Health Lifestyle 1. fadlan like saar videoga, subscribe garee channelka haddii aad ugu cusub tahay meeshan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.